assalaamu calaykum bartamihii qarnigii 19aad wixii ka dambeeyey 1850kii soomaalida waxaa u bilowday casri cusub oo gumaysi ah qaybtii hore waxaan ku soo sheegnay in Boortaqiisku ahaa ciddii ugu horreysay ee gaartay xeebaha Soomaalida markii laga hadlayay gumaystayaashii Yurub waa intii u socday dagaalkii Imaam Axmed Gurey ee xabashada oo gacan ka helaysay imbaraatoriyadii Boortaqiiska 1875 masaaridu waxay ku sugnayeen magaalooyinka Barbara, Kismaayo iyo Baraawe dhanka daanta kale ee gacanka Cadan gaar ahaan magaalada Cadan ee Yemen taariikhdu markay ahayd 1839 ayay ku dhacday gacantii Ingiriiska waxaana xigay hanqaltaag Ingiriisku sameeyay ku aadan qabsashada xeebaha waqooyi ee Soomaaliya ee ku aadan Cadan arrinkaas Ingiriisku wuxuu suurtagalay 1883 kadib markii uu masaarida ku qasbay inay ka guuraan Zaylac iyo Barbara hadafka ugu weyn ee Ingiriisku uu ka lahaa qabsashada xeebaha waqooyi waxay ahayd in uu ammaan geliyo qolqolka hilibka ciidankiisa Cadan jooga uga imaanaya dhulka Soomaalida ee qaniga kuwa xoolaha iyo waliba loolankii kala dhaxay Faransiiska ku sugnaa dhulka loo yaqaanay xeebta waqooyi galbeed ee Soomaaliya oo maanta loo yaqaano Djibouti dhinaca kale 1869 Talyaanigu wuxuu iibsaday takada casab ee Eritrea kadibna waxaa xigay heshiis lacag la dhaafsanayo oo la gala maamulada iyo sanaadiintii ka jiray xeebaha dheer ee Soomaaliya 1889 Kismaayo Jubbada Hoose waxay ku dhacday gacantii gumaysiga Talyaaniga halka magaalada Muqdisho la qabsaday 1892 laakiin Talyaanigu 1896 ayuu si rasmi ugu dhawaaqay in koonfurta Soomaaliya oo dhan tahay dhul ku jira gacantiisa heshiiskii Berlin sidoo kale waxaa lagu yeeray shirkii Congo shirka Berlin wuxuu dhacay intii u dhaxaysay 1884 ilaa 1885 fikradda shirka waxaa lahaa boqorkii Belgium Leopoldgii labaad oo markaas gumaysanayay Congo laakiin waxaa ku baaqay Boortaqiiska waxaana lagu qabtay magaalada Berlin ee Jarmalka shirka Berlin ma ahayn mid lagu qabsanayo Afrika sida ay dad badan qoraan ee wuxuu ahaa shir looga hadlayo sida ay gumaystayaasha Yurub ugu heshiin lahaayeen dhulka ay gumaysteen ee Afrika taasoo ka dhigan in dawlad walba aan loogu imaanin qaybta ay ka gumaysata qaaradda Afrika gacantii Yurub ayay ku jirtay sidaas darteed shirku ma ahayn mid lagu qabsanayo ee wuxuu ahaa in dawladaha Yurub ayna ku dagaalamin Afrika gumaystayaasha Yurubiyaanka waxay qarka u saarnaayeen shirka ka hor in ay qaaradda Afrika u soo raraan dagaaladii ku dhex mari jiray Yurub laakiin shirka Berlin ayaa baajiyay arrinkaas sababta shirka lagu qabtay Berlin ayaa ahayd in xilligaas Jarmalku uu quwad la yaab loo hormarsan waa xilligii la taliyay Jarmalka ugu horeeyay Otto von Bismarck natiijooyinkan hoos ku qoran ayaa ka dhashay shirkii Berlin Ingiriiska inuu qaato wadamada Masar, Uganda, Kenya, dhulkii Soomaaliyeed, waqooyi iyo koonfur galbeed, South Africa, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Nigeria iyo Ghana halka Faransiiska loo aqoonsaday inuu leeyahay inta badan waqooyiga Afrika laga bilaabo wadanka Mauritania lagu geeyo Chad, Gabon iyo Jamhuuriyadda Congo Belgiumna waxaa loo aqoonsaday inay maamusho Koongada Dimuqraadiga halka Boortaqiiskana la siiyay Mozambique iyo bariga Angola Talyaanigana koonfurta Soomaaliya, Eritrea iyo Liibiya Jarmalkana waxaa loo aqoonsaday Namibia iyo Tanzania Isbaanishkana Equatorial Guinea shirka Berlin ma ahayn aan xadno ee wuxuu ahaa aan ku heshiino wixii aan xadnay dhulka Soomaalida waxaa loo kala qaybiyay 5 qaybood qaybta koonfureed Talyaani ayaa gacanta saaray goostayna qaniimahan u qaatay gobolada waqooyi waxaa goostay sidoo kale Ingiriis halka dhulkii lagu magacaabi jiray xeebta waqooyi galbeed ee Soomaaliya oo hadda loo yaqaan Djibouti Faransiisku degay dhulka Soomaali galbeed ama Ogaadenia kadib hagardaamo iyo khiyaano ballanka baxo Ingiriisku sameeyay waxaa la siiyay Ethiopia haddii aan aadno koonfur galbeed dhulka Kenyaatigu ugu yeeraan NFD oo laga soo gaabiyay gobolka waqooyi ee xuduudka dhaco laakiin nasiib darro waxaa in Soomaalidu dhulkan ugu yeeraan NFD oo ah magac Kenyaatigu u baxsadeen markaad leedahay NFD waxay ka dhigan tahay inaad dhulkan u saxiixday Kenya inay leedahay si 100% haddii aad ku sugantahay gudaha Kenya gobolkan Soomaaliyeed wuxuu kaaga aadan yahay waqooyi galbeed laakiin haddii aad joogto Soomaaliya wuxuu kaaga aadan yahay koonfur galbeed kadib markii si 100% dhulka Soomaaliyeed gacanta loogu dhigay waxaa xigay halgan adag oo ka dhana gumaysiga waxaana ugu caansan uguna horitaan badan kii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo soo bilowday 1899 socdayna ilaa 1920 sayidku dagaal taariikhda galay ayuu la galay Ingiriiska muddo 20 sano ayuu ku jiray halganka tale ayaa saldhig muhiim u ahaa sayidka iyo ciidankiisa raggii uu sayidka hogaamin jiray waxa lagu yeeri jiray Daraawiish
kadib geeridii sayidka iyo dhammaashadii daraawiish halganku ma istaagin halkiisi ayuuna ka sii socday boqor cismaan ayaa ka mid ahaa raggii halganka sii waday ka dhanka talyaaniga 2 sano ayuu socday halganka boqor cismaan 1924kii sheekh xasan barsane gobollada shabeellooyinka ayaa horkacay halganka dhana talyaaniga laakiin cadaadis milatari ayuu la kulmay halgankiisina waa la soo afjaray sheekh xasan barsane gacanta gumaysiga talyaaniga ayuu ku dhacay muddo ka bacdina wuxuu ku geeriyooday xabsiyada gumaysiga dhanka waqooyiga halganku ma istaagin waxaana socday mawjado gumaysidiida waxaana ugu caansanaa wax iska caabintii sheekh bashiir halgan adag ayuu la galay gumaysiga ingiriiska dhulka waqooyi laakiin sidoo kale wuxuu la kulmay wixii ay la kulmeen walaalihii koonfureed 1945 ayaa sheekh bashiir lagu dilay meel u dhow magaalada burco gobolka togdheer intaas kadib soomaalida waxaa galay niyad jab dhanka in ay awoodooda xorriyad ku helaan maadaama kacdoonkaas la hor istaagayo leena iskugu tagaayo kadibna waxaa bilowday wax iska caabin nooc kala waa in qalinka iyo afka lagula dagaalamo gumaysiga inkastoo gumaysigu qalin iyo qoriba labadaba adeegsanayay xilliyada Soomaalidu waxay bilaabeen dhisid ururo dhalinyaro iyo waliba ashkhaas kaligooda sida xaaji aadam axmed afqalooc xaaji faarax Omar 1943 daafaha dunida waxaa ka holacay dagaalkii labaad ee adduunka isla sanadkaas ayaa la aasaasay ururka SYL oo laga soo gaabiyay Somali Youth League ururka dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhankan qalinka iyo afka ku halgamayay 1954 musiibo xun ayaa soo waajaday ummadda Soomaaliyeed kadib markii dhulkii Soomaali galbeed ama ogaadeen la siiyay Itoobiya waxay ahayd dhagar xun iyo khiyaano uu Ingiriisku sameeyay taasoo ahayd ballanka bax heshiis hore ayuu Ingiriisku ku ballan qaaday in dhulka Soomaali galbeed aan la siin doonin Itoobiya laakiin Ingiriisku ballantaas uu ka baxay dhulkana wuxuu siiyay Itoobiya 26 Juun 1960 gobollada waqooyi ayaa ka xoroobay Ingiriiska halka koonfurna xorowday 5 maalin kadib gaar ahaan 1 Luulyo 1960 isla maalintaas ayaa lagu dhawaaqay midnimada labada qaybood ee gumaysigu kala qaybiyay markii hore aadam cabdulla cusmaan ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya 4 sano kadib xorriyadda koonfur iyo waqooyi waxaa holacay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya 1964 dagaalkan ma ahayn dagaaladii ugu horreeyay ee dhexmara Soomaalida iyo Xabashida taariikhda ummaddan ma soo bilaaban 1960 loolanku boqolaal sano ayuu soo jiray laakiin hardankan dambe waxaa sabab u ahaa soo celinta dhulka Soomaaliyeed ee maqan ee sida gardarada loo siiyay dad aanan lahayn waxa lagu tilmaami karaa khiyaanada Ingiriisku sameeyay nin bixiyay wax uusan lahayn siiyayna cid aanan mudnayn muddo 9 sano gudaheed waa wixii ka dambeeyay xorriyadda Soomaaliya waxaa soo maray dalka 3 madaxweyne 2 rayid iyo mid military آدم عبد الله عثمان عبد الرشيد علي شرماركي محمد سياد بري oo 22 Oktoobar 1969 afgambi military ku qabsaday talada dalka intii uu socday xukunka Siyaad Barre dhacdooyin muhiim ah oo kala duwan ayaa dalka soo maray sida qorida farta Soomaaliga ku beeridii jaamacadda Carabta iyo dagaalkii 1977 qoritaanka afka Soomaaliga waxaa la qoray 1972 Soomaalida intaas ka hor waxay wax ku qori jireen luqado kale sida Carabiga, Ingiriiska iyo Talyaaniga. Soomaaligu wuxuu ahaa kaliya luqad lagu hadlo. Qoritaanka afka Soomaaliga waxaa lagu tiriyaa dhacdooyinka ugu muhiimsan dhanka xadaarada ay Soomaalidu sameeyaan. Laakiin isku daygu muddo aad u dheer ayuu soo bilowday in afka Soomaaliga la qoro. 1920kii Cismaan Yuusuf Keenadiid ayaa alifay far uu ugu magac daray Cuthmaaniya oo ah qoraal gaar ah laakiin la iskuma raacin fartaas. dagaalkii 1977 23 Julaay 1977 ciidanka Soomaaliga wuxuu ka tallaabay xadbeenaadka Soomaali galbeed wuxuuna afka saaray gudaha dhulka Soomaaliyeed ee ku jiray miciyaha Xabashida dagaalahanti iyo nafba loo horay ayaa dhex maray ciidankii Soomaaliya iyo kan Itoobiya ciidanka Soomaaliya sabar iyo adkaysi badan ayuu muujiyay taasoo keentay in ciidanka Itoobiya soo wajahdo khatar jab aan laga soo waaqsanin waana sida dhacday ciidanka Soomaaliya oo gacan ka helay dadka Soomaaliyeed ee gobolka ayaa ku guuleystay in uu xoreeyo
dhulka Soomaali galbeed. Xoraynta dhulka waxay ahayd farxad aad u weyn laakiin aanan muddo badan sii jirin. taariikhdu way soo laabataa sidii dhacday xilligii Imaam Axmed Gurey ee ahayd in xabashidu u qayla dhaansato. reer Yurub gaar ahaan imbaraatoriyadii Boortaqiiska ayay sidoo kale boqolaal sano kadib u qayla dhaansatay Ruushka iyo wadamo kale. midowgii Suufiyeedka wuxuu ahaa nidaam shuuciya halka nidaamka Itoobiya sidoo kale uu ahaa shuuci uu hogaaminayay Mengistu Haile Mariam. Fidel Castro hogaamiyihii hore ee Cuba ayaa 15,000 oo askari degdeg ah ku soo daadiyay furimaha dagaalka si loo xoojiyo ciidanka Itoobiya ee sii liicayay. halka Ruushka taangiya iyo kumanaan ciidan daladle uu ku daadiyay dhabarka dambe ciidanka Soomaaliya. Soomaalidu garab iyo hiil la taaban kara ma aysan haysanin, taasoo keentay in ciidanka Soomaaliya soo wajahdo cadaadis militari aad u adag, taasoo ugu dambeyn keentay dib u gurasho. Cuba iyo midowgii Suufiyeed waxay ku guuleysteen in ay Itoobiya u qabtaan dhulkii Soomaaliyeed. 15 Maars 1978 Soomaali galbeed si rasmi ah mar labaad ugu dhacday gacantii xabashida. laakiin qoritaanka taariikhda halkan kuma istaagayso. Umar al-Mukhtar oo ah libaaxa saxaraha lana dagaalamay gumaysiga Talyaaniga ee Liibiya ayaa markii la daldalay 1931 yiri hadalkan: waa inaad isu diyaarisaan inaad la dagaalantaan jiilka hadda, kan ka dambeeyo iyo kan ku sii xigo. sidaas darteed mas'uuliyadda xoreynta Soomaali galbeed waxay saaran tahay jiilka hadda, kan ku xigo iyo kan ka sii dambeeyo, annagoo ku dayanayno Imaam Axmed Gurey iyo ciidankii Soomaaliyeed 1977.